asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Maxaa adduunka ka dhaca habeen walba aadaanka salaada subax hortiisa thuluthka dambe ee habeenkii, gaar ahaanna ku dhowaad 2 saacadood ka hor xilliga aadaanka salaada subax. Wakhtigaas waa wakhtiga ugu fadli badan ee ku jira habeenka dhammaantiisa. meeqaa toobad keenaysay oo alle subxaanahu wa tacaala ka dambi dhaaf dalbaysay oo dembigoodana aanan loo dhaafin wakhtigaas mooyee. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu og yahay in uu leeyahay addoommo aad u jecel, waxayna jecel yihiin in ay u dhowaadaan alle subxaanahu wa tacaala. markaas buu alle subxaanahu wa tacaala u yeelay wakhti uu u soo dego samada nagu soo sokaysa ama samada adduunyada. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala soo degayaa soo degid u qalanta weyninkiisa iyo sultaannimadiisa subxaanahu wa tacaala, si uu ugu naxariisto oo uu oga aqbalo dalabkooda. waa uu la hadlayaa, iyaguna waa ay la hadlayaan, waa ay baryayaan, isaguna waa uu ka aqbalayaa subxaanahu wa tacaala. waxayna arrintaani dhacaysaa habeen walba oo yimaada. wuxuuna nabigeena Muxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi madalkan sulusuleylka ah ooga hadlay oo ku soo koobay kalimaad basiid ah ama ereyo aad u fudfudud, isagoona yidhi: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. متفق على صحته. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. wuxuu rabbigeena subxaanahu wa tacaala habeen walba u soo degaa samada adduunyada xiina yabqaa thuluthu leyli alaakhir, gaar ahaanna wuxuu subxaanahu wa tacaala soo degaa markay habeenka 3 meeloodoo meel ka dhiman tahay. fayaquul, markaas buu wuxuu odhanayaa: man yadcuunii fa astajiibu lah, yaa i baryaaya oo aan ducadiisa u ajiibaa. man yas'alunii fa uctiyah, yaa wax i weydiisanaya oo aan siiyaa. man yastakfirunii fa agfiru lah, yaa dembidhaaf i weydiisanaya oo aan u dembi dhaafaa. xataa yanfajira alfajr. wuxuuna jaaniskaasi soconayaa ilaa uu waagu ka baryo. wakhtigaasina waa wakhtiga ugu fadli badan habeenka gebigiisa. meeqaa toobad keenaysay oo xilligaas ka hor aanan loo dhaafin dembigooda. meeqa saa'il ayaa ajiibidda ducadiisa dib loo dhigay oo markuu xilligaas ducaystay musiibada laga dulqaaday oo uu alle subxaanahu wa tacaala ka aqbalay ducadiisa. meeqa muslim oo ka quustay in indhihiisu ay alle subxaanahu wa tacaala cabsidiisa la ilmeeyaan ayaa xilligaas isku arkay in ilmadiisu ay si degdeg ah ooga soo dareerayso dhabannadiisa. wakhtigaas waa wakhti barakaysan oo aad u sharaf badan. sidoo kale qiyaamuleylku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu fadli badan ee alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa loogu dhowaado. maxaa yeelay waa salaad sir ah oo inta badan qofka tukanaya iyo alle subxaanahu wa tacaala oo keliya u dhaxaysa oo alle loo khaas yeelay subxaanahu wa tacaala. sidoo kale wuxuu qofku hurdadiisa uga tagayaa oo uu mashaqadaas u marayaa si uu u helo macaanka ay leedahay la hadlidda uu la hadlayo rabbigiisa subxaanahu wa tacaala. inna naashi'ata alleyli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qiila. cibaadada la cibaadaysto habeen barkii waa cibaadada ugu saamaynta badan qalbiga,
waana xilliga ugu hadal caddaynta badan oo uu qofku ismaqlayo isagoon ku jirin mashquulka adduunyada. nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaan jiray mid aad ugu dadaala qiyaamuleylka, wuxuuna taagnaan jiray ilaa cagihiisu ay ka dildillaaceen salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. markuu habeenku dam yidhaahdo oo xidiguhuna ay dhacaan oo shanqartuna ay istaagto oo dadkuna ay wada hurdaan oo alle subxaanahu wa tacaalaa mooye cid kale aysan soo jeedin, soo weyse qaado oo soo xero labiskaaga kan ugu wanaagsan. kadibna qiblada u sii jeeso oo tuko 2 ragcadood oo fudfudud. maxaa yeelay labadaas ragcadood oo fudfudud ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku bilaaban jiray tahajjudkiisa. waxaadna tidhaahdaa: allahu akbar, wajjahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin. sidaas ayuuna rasuulku inagu amray sallallahu calayhi wasallam markuu yidhi: idaa qaama axadukum min alleyl falyaftatix salaatahu birakcatayni khafiifatayn. midkiin hadduu habeenkii salaatuleylka u soo kaco, salaadiisa ha ku bilowdo 2 rakac oo fudfudud. kadibna waxaad bilaabanaysaa salaatuleylkaaga ama tahajjudkaaga. salaatu tahajjudkana waxaa loo tukadaa 2 rakacdood, kadibna waa la salaamo naqsadaa. alle subxaanahu wa tacaalaa wuxuu leeyahay addoommo jecel oo sidoo kale jecel kulankiisa, waxayna habeen walba iyagoo sabraya sugaan wakhtigan thuluthuleylka dambe ah, kamana suulaan in ay naftooda ugula jihaadaan hurdo iyo soo jeedba, ilaa ay uga mid noqdaan dadka ku guulaysta ee ku liibaana wakhtigan aadka u sharafta badan. sidaas darteeda imtixaanaadka uu alle subxaanahu wa tacaalaa inagu tijaabinayo waxaa ka mid ah in wakhtiga uu addoommadiisa u dhawaaqayo uu ka dhigay wakhtigan muta'akhirka ah ama xilli dambe ah, si uu alle subxaanahu wa tacaalaa fadligiisa iyo naxariistiisa u haleelo oo keliya qofka ay dhab ka tahay alle jeceylkiisa. qofkii xilligaas ajiibana wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa naxariistiisa ooga furaa wax aananba ku soo dhicin qofkaas qalbigiisa. wuxuuna rasuulku sallallahu calayhi wasallama inagu booriyey salaatuleylka, waana sunno mu'akada ah oo ka sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaalaa qur'aankiisa kariimka ah gudihiisa salaatuleylka ku sheegay in ay tahay sifo ka mid ah sifooyinka ay leeyihiin dadka muttaqiinta ah. alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa: kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun. kuwan muxsiniinta ah ee muttaqiinta ah waxay habeenkii ka seexan jireen in yar oo keliya, iyagoo inta kale salaad iyo cibaado ku dhammaysta. wabilasxaari hum yastakfiruun. habeenka aakhirkiisa intuusan fajarka soo bixin ka horna waxay rabbigooda weydiistaan inuu u dhaafo dunuubtooda. salaatu tahajjudku ama salaatuleylku waa 11 ragcadood ama 13 ragcadood markii witirka lagu daro. haddaba muxuu yahay fadliga uu wakhtigaasi ku leeyahay ducada ajiibiddeeda? ducadu waxay ka mid tahay sunnooyinka mu'akadka ah habeenka aakhirkiisa. waxaa sunno ah in addoonku uu xilligaas ducaysto oo uu ku dadaalo. wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam: inna min alleyli saacatan laa yuwaafiquhaa cabdun muslimun yas'alu allaha khayran ilaa actaahu iyaah.
habeenka waxaa ka mid ah saacad haddii uu waafaqo addoon muslim ah isagoo alle subxaanahu wa tacaala wax khayr ah oo arrimaha adduunyada iyo aakhiradaba ka mid ah weydiisanaya uu alle siinayo subxaanahu wa tacaala. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.